madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa amar ku bixiyay in diyaaradaha militariga ee Mareykanku ay duqeeyaan Iran sida ay baahisay warbaahinta caalamka. War qoraal ah oo daabacay wargeyska New York Times ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu bixiyay awaamiir la xiriirta duqeyn ka dhiga Iran, balse dib ugu laabtay go'aankaasi markii ay diyaaradaha dagaalku ay hawada galeen ayna isku dayeen inay duqeeyaan Iran. Sidoo kale maraakiibta dagaalka Mareykanka ayaa dagaal u diyaar garoobay ilaa iyo haatan lama oga sababta go'aankaasi u qaatay Donald Trump, balse wararka ayaa sheegay inaysan la qabin wasiirka arrimaha dibadda oo ah la taliyaha amniga ee Trump. Inkastoo xiisadda Mareykanka iyo Iran ay soo jiitamisay ayaa haddana Mareykanku ka carooday diyaaradda aanay lahayn Washington oo ay soo riday Iran iyadoo ay ku sheegtay in si gardarro ah u soo gashay hawada dalkeeda. Diyaaraddaasi oo la sheegay in qiimaheedu ku fadhiyo $130 milyan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xarumaha u amray in la duqeeyo waxaa ka mid ah dhismayaasha raadeerka iyo kuwa militariga, balse Iran ayaa sheegtay in isdifaacayso inay ka gorgortameyn arrimaha qadiyadda dalkeeda. Dhanka kale, gudoomiyaha aqalka Koongareeska ee Mareykanka ayaa ugu baaqay Trump inuu ka digtoonaado inuu isku sii furo xaalada carakiran, waxaanay xustay in Mareykanku uusan hadda diyaar u ahayn dagaalo lala galo dalka Iran. Wanafsi Cabdilaahi Qorne, wararka dalka TV magaalada Muqdisho.